بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كسو هذا عشر كاني أحمل الشنات برشادة علمية ASP.NET Core أنه سمعنا project اللي هذا Godey Madrasah portal عشر كان قدام بي وحان سو سمعناي controller وحان ku daray database waxaan ku xidhnay database connection inagoo db context class inagoo isticmaalana structure injection كبعدين waxaan ku daray hal method ama action result leedahay all teachers iyo viewgeedii front endgeedii ahaa. Now we need to quickly aan ku daro create edit iyo delete cashirkan waan boobsiinaya insha Allah taala. Marka waa a lot of copy paste way, so let's go ahead and do that. All teachers waan iska xirayaa all this is a teacher controller kan iska xid kan iga xid kan oo baahni so kan ayaad waxa sameynaysaa method kan ayaad sameynaysaa create teacher la yiraahdo public action result create teacher and then return view page key and if I save this one hadda aan ku noqdo this guy then refresh dhaho. Let's see what happened. Intuu soo baxayo waxaana sharxin meeshan ku qoran tahay pound number of students ma sharxin. Let me go back 1 minute. All teachers cashirkeenii hore haddaad ku noqotaan meeshan ka u hooseeya badhamada ka koreya teacher dot student calaamad su'aal baa saaran dot count. This is maxay tahay waxani kuwan kale teacher ku dhex jiray waa age-kii macalinka iyo waxa waa classka caadiga laakiin waa navigation property-gii isaga ahaa. If you go to teacher to students waa ardaydii u dhigahay marka waxaan leeyahay mataqaanaa teacherka ardayda ku dhex jirta hadday maran yihiin haddaysan marnayn cafwan haddaysan marnayn count tiri way hadduu laakiin ever yahay oo macalinkan weli wax arday aan uusan u dhigayn count ma soo gaariyo ever baramaar ka dhigaya. So sida u jeedaanba kan hadda ever waaye kan la one waaye so intaas marina baraarujiyo. So button kan haddaan ku dhufto add form kana hadda sameyn doonaa insha Allah. This is the form kani waxa sameynayo waa kan hadda aad ku darteen is this one, this empty method create teacher waa form ka. So now all you need to do right click and then add view and then say add. Maraad ku dartid halkan soo fadhiisanaya create teacher korkeeda kore iyo waxaad gelinaysaa moralka waxa ay sameynayso waa formkii teacher. So add moral m2 ka small letter type teacher and then hoosteeda waxa ku qoran h1 ka iska tirtir diff ayaad sameynaysaa la yiraahdo container dhaxdiisa h3 hr then what's over and then form if you type form clear and tab automatically asaa ku sameynaya form dhaxdaad ka geli kartaa then you will do waxa ka hadaya insha Allah. So form markaa sameysid waxa formka wixiisan dhaxda kaga jira iska tirtir waxaad ku qortaa ASP action create teacher oo post weli mayna sameynin. So let's do that hadda now control V ayaan dhahay maadaama aan haystay. So action cusub samee la yiraahdo create teacher dhaxda teacher c new teacher ku qor korkeeda kor waa post and then say if model state that is valid db teacher add new teacher key form ka imaaday save database return to all teachers oo midkaas kor ah haddii kale return the view. I will explain all this. Save kare go back to create teacher postiga maxaa waaye formka markaan buuxiyo let's say first name last name aan ku qoray waa kuwan buuxiyay now xaguu aadaya it has to go somewhere right. That post is where it's going right now. That's laga wadaa. So post meaning send to the database. So now as you can see we're sending the newly created or filled out teacher to the database. So back to create form key dhaxda ka gal diff closing kiisa wato samee oo see ASP validation summary model only class kan see maxay tahay waxa kan
This means haddaan click ku dhufto aan wax buuxinin, it has to show me this information. Let's say first name ma buuxinin ba, so let's click it and it should show me a red stuff saying hey it's required, all that stuff. So return inshallah. See that is the model state. And then waxaad samaynaysaa hoosteeda diffkan hoostiisa diff class ayaad samaynaysaa rowga kani wuxuu ka koobnaan doonaa 3 shay. Rowgaas mar haddaad row aragtid waa bootstrap, screenka ayaa loo qaybinaya 12, so 6 iyo 6 waa 12 iyo mid 4 iyo 4 8 ka dhigaynaa. So that means 6dan 3dan xabo 6 bay ku dhex jiraan, 3dana 6 bay ku jiraan, 2danna waxay ku dhex jiraan 4. Marka that's what we're going to do. So midka u horeeya call 6da horeeya waxaad gelinaysaa this form information. First name ka bes intan wata diff class, form group, label, control label, input, first name, spam, validation. Waxa validation kan ku hoos qoraya input kana dhahaya first name is required waa this line spam validation for first name text danger. Haddaan dhaho text info, haddaan dhaho look what happened. If I do that and I refresh and I try again, look what happened. Textiga redka hadda ku noqonaya waxay noqonaysaa that color. So danger meaning red. Okay, so now kanaad ku qoraysaa, then hoostiisa hadana last name, hadana hoostiisa age. That's the first 6. Okay, la soo isku khaldin. When you finish that, banaan ka tag 6da kala below diff kale oo wata 6 column. Waxaad gelinaysaa age-ka waa select or drop down. Hore usoo barta drop down laga sheekeyn maayo. And then email and lastly phone number. 6da waa isku dhamaatay. 4ta u hooseeya tagaysaa and then 4tan waxaad leedahay offset 4 maxaa waaye hadda halkan waxaan dhihi karay 12 laakiin why, because as you can see buttonkeena create kalan kama bilaabmo. HTML-ka always waxay ka bilaabantaa from left to right waaye. So intuu halka bilaaban waxaan 4 ka soo durug halka ka bilow. So waa geeskay ka soo offset mana ka soo durug waaye. And then input type submit value create buttonkan and then calaamada banaan ka tag oo kala qaybisada ah pipeline bal dhahaa, and then another anchor tag oo leh index ku noqo go back. Haddii lagu dhufto ku noqo all teachers, afwan halka bedelisan all teachers page waaye maahan index, all teachers page ku noqo and that's it. So if I refresh it, on could to go back, it should go back to this one. If I click create, then it should be here. And then gender key, email ka, telephone ka, age ku, so a number. Okay, so this is done. Now go back to the teacher's controller key. Method ku hanin waa post. Hal shay aan ku daraynaa oo ah validate anti-forgery token. Kaasaan ku daranaa. This goes underneath the post and above the public. Waxa weeyaan waxay ka caawinaysaa in hackerska ama dadkan wax xada aysan formkaadani ku soo dhuumanin oo aysan wax ka xadin. Manaha think about hadduu yahay waxaan daily website live or online ah oo dadka dhan arkayaan, ruux kasta intuu copy dhaho, look intuu right click dhaho ayuu copy garaysan karaa HTML-kaada oo asaga meel kale intuu gasho iska soo dhigi karaa. Marka wuxuu sameynayaa wax la yiraahdo let me see if I can show you guys. Reload. I'll show you Chrome book fiican. Chrome code buu ku darayaa sir ah oo uusan qofku xadi karin. Okay, so now formka halkan yimid ardaydii cusub halkan ay kasoo gudbeen. Model state is valid wuxuu la shaqeeyaa oo uu ku xiran yahay validation required waxyaabahan aan gelinay waxaa la shaqeysa oo check garanaysa in waxaas oo dhan ay lala kulmay ama oo green light yahay this one. Haddii everything is good and formka la soo buuxiyay oo wax khalad uusan jirin, then waxaan leenahay database ka add, teachers table ka add,
add waxaad ku dartaa new teacherka lasoo buuxiyey ee halkan ka imaanaya ku dar. halkan waa daaqad yar waxaa la dhahaa parameter passing wuxuu ka imaanayaa foomka aad soo buuxisay baa halkaas soo maraya. waxa kani waa wado yar ama daaqad loo sameeyey inuu kasoo galo waay. yaa shaqada qabanaya inuu foomkan htmlka wax kasoo qaado oo halkan soo wax la data binding baa jira oo MVC ama ASP.NET Core uu leeyahay oo already ku dhisan oo aadan shuqul ku lahayn oo ku diyaar. then markuu sameeyo database save change baan leenahay ka bacdi markii la buuxiyo oo uu database ku darsamo dib ugu noqo waxaan nidhi pagekii hore ee ahaa all teachers. haddii khalad yimaado waxaan leenahay dib ugu celi foomka createkii kan ahaa dib ugu celi foomkii isaga ahaa wixii ka dhimanaan ha soo buuxiyaan. and this is the form. okay, let's add a teacher hadda tijaabo ah. let me add Ali Mohammed, agekiisu waa 23, waa male, emailkiisu ali@test.com, phonekiisu waa kaas. so let's create. let's wait and see that Ali Mohammed soo galay. so it's right here. macallimiintiisu already ardaydiisu waa ever, that is waa 23. now we gotta do editku waa same as create. so let's go back. halkana waxaan sameynayaa control Z baan leeyahay. anti-forgerygaas idinka aniga hadda iga tirtirmay laakiin idinka tirtirna. so edit leh action cusub samee below the create. fadlan mar kastaba labadan method kasta bar meesha ku bilaabatay meesha ku dhamaatay isku dar inaad fahanto. public waxa ku xiga waa calaamad mustache taa kalena waa xiritaankeeda. haddaad dul tagto way kuu sheegaysaa labadaa iyaga isle waxa ku dhex jiran ayadaa leh. so banaankeeda ka imaanaysaa kana sameynaysaa siduu yahay u samee. and then marka teacher la edit gareynayo if I go back to here, if I meeshan hoose fiiri halkaa hoose fiiri fadlan. haddaan edit ku dhufto look wuxuu ku leeyahay teacher edit teacher number 4 kanna waxaa weeye number 5 kanna waa number 6. so macallin kasta ID buu leeyahay. ID-yaduna waa kuwan. look this ID siday ku garanaysaa waxay ku garanaysaa if you go to all teachers adiga halkan u sheegay right here ASP route ID teacher ID ka dhig edit markuu yahay iyo markuu delete yahay adiga yiri. so the system is smart enough to know the ID and then to send. so action keenu waa inay aqbasho ID. so this ID is coming from the buttonka xagga yaalo. and then waxaan sameynaynaa okay database ka add teacherka la rabo in la edit gareeyo soo raadi find waa soo raadi. haddii aad soo heshid teacherka halkan dhig. so waxaan leenahay haddii teacherku ever null yahay mina haddii teacher uu jira uusan ahayn. so tusaale ahaan hadhow aan test garanaya sorry. haddii teacher ID khaldan ama macallin la tirtiray oo laga systemka laga saaray uu yahay waxaa dhahaa teacher not found then error soo saar. haddii kale pagekii edit hagee. so pagekin waa get. so ku kale waa inaan sameyno la yidhaahdo post right here http post teacherkan waxa weeyaan kii lasoo edit gareeyey. marka hore waad soo raadisay formkii baad geysay ka bacdina now postigii marka lasoo edit gareeyey tusaale da'da laga soo bedelay ama phone numberkiisa laga soo bedelay ama emailkiisa now waa inuu database ka aado. so same thing database ka check garay and everything okay. meesha hadday teacher uu add ka ahaa create markaan joognay create kor add bay la socoyaa macallin cusub baa lagu daray. kan waa update database-ka teachers update macallinkii and then save change and then redirect. haddii wax ka khaldan yahay oo wax laga tagay dib formkii ugu celi. so save garee. all I did was labadan aan ku darayaa this one iyo this one maan ku daray wax kale kuma darin. so as you can see teacher createkeeda iyo editkeeda waxa kale oo kala duwan waxaa waaye ka hore ID wataa kan kalena uu maran yahay. that's pretty much it. meeshanna waa add kanna waa update. those are the only two differences. inta kale 90% waa the same. now maadaamaad kaal intaas samaysay kan edit teacher ID wato right click deh add view deh and then add deh intaa markaas samaysid edit view baa xagga kuusoo fadhiisanaya your viewgaada waa kan soo fur. so all you need to do is very simple. all you really need to do is create teacher kii aad sameynaysa dayto the create teacherka soo copy garee. okay I'm going to show you easy way. so copy garee create teacher and then paste ku dheh halkan course korkaa kore ha iloobin inaad modelka ku dartid and then meesha create new teacher ku qoran tahay edit ku bedelon
ASP form action create teacher waxaad ku bedeshaa edit teacher inta kale ma taabanaysid the same meeshay ku qoran tahay submit value create waxaad ka dhigtaa update the only thing that's it saddexdaa meel baad ka bedeshay lastly formkan waxaa ku xiga div ASP validation baa ku xiga dhexdiisa iyo div rowan dhexdooda waxaad dhahdaa add sign html that hidden for baad leedahay x such that x dot teacher id this is very important for edit markaad edit garanaysid shay already jira waa in aad id-ga u dirtaa database-ka maxaa yeelay marka create wax id inaad dirto lagama baahneen maxaa yeelay waa cusub yahay teacherkan id ma wato marka shaqada entity framework ayaa waxay ahayd inay id-ga automatic u samayso 1 2 3 4 laakiin now waxaad edit garanaysaa macallin jira oo id-gu si yahay 4 ama 3 so haddii aadan intan samaynin entity framework waxay u malaynaysaa inuu teacher cusub yahay oo id la'aan ah then waxay ka dhigaysaa macallin cusub bay ka dhigaysaa so si aysan taa u dhicin waa in id-gii aan qarinaa si ay dadku u arkeen marka koowaad haddii dadku ay id-ga macallinka ogaadaan wax walbay ku samayn karaan then waa inaan diraa so hidden for waxay kaa caawinaysaa inay kugu qariso then markii aad formka diraysidna id-ga ay raaciso si entity framework aysan u tirtirin ama aysan u samaynin mid cusub so let me refresh it and then let's check edit and hopefully that will work inuu 20 minute gaar laga yaabaa projectigan so okay then edit baan ku dhufanayaa edit baan ku dhufto let's say this guy waa 30 jir buu ahaa da'da baan ka khaladnay telefonkiisana waa 99999 I'm going to say update and guess what there you go Teddy 999 see soo galay so edit is working fine it's good lastly waa inaan samayno delete so delete kiina waa buttonkan already waad ku diyaarsan yahay all you need to do is control Z samee methodkan cusub ku samee below the edit teacher ku samee so delete teacher id bay u baahan tahay iyaduna macallinkii la delete gareyn rabay soo hel macallinka hadduusan jirin teacher not found hadduu jiro database-ka tag remove teacher save changes database change kusafare and then all teachers out very simple one same as the other one now let me refresh and tijaabiyo this one uma baahno view so right click add view dhihi mayna sababta we don't need a view uma baahnin so buttonkana waxaan ku daray all teachers inaa xudaad xustaan right here edit delete waakan laakiin javascript-gana shaqayn doona oo warning inoo soo siin doona so if I do delete haddaan dhaho this guy see wuxuu leeyahay hey are you sure you want to delete okay I want to delete see uu ka tuuray labaa ku socday and then I'm going to do this with 2 click are you sure you want to delete yes and then 1 baa kusoo haray so delete is working fine cashirka kani intaas ayaanu kusoo koobaynaa we added delete we added edit oo laba wadata get iyo post labadan ay wadataa edit get iyo post get waa formkii ama edit formkii meeshii lagu diyaarinayay postna waa formkii in la diro create also waxay wadataa labadan midka hore waa get waa create form empty ah ka dambana waa formkii lasoo bixiyay database-ka u diro waa and then we created all teachers and then we also connected to constructed injection teachers halkaas ayuu nagaga egyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته